السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا مال والبا وديك داوانيسان يسي والبا ومركا عدي مقليسان ما انتيتو ومالين كاليتو ورنتي لياب كيدا waxaan doonayaa maanta halkan aan kugu soo bandhigo cod ka yimaaday ambassadorkii hore ee Soomaaliya u fadhiyay qaramada midoobay ambassador Ciid Bedel Maxamed ambassadorkani wuxuu sheegay in badda Soomaaliya heshiiskii loogu saxiixay oo heshiiskii Somaliland iyo Ethiopia ee damaaciga badda Soomaaliya la qaata ahaa ay qayb ka ahayd dawladda federaalka ee Soomaaliya si iyo waliba sidii loo maleegay arrintaasi ayuu ninka odayga ah uu maanta banaanka keenay waxaan marar badan ku celcelinay anigu ku celceliyay inuu xasan qayb ka yahay asaga iyo kuwa ku hareeraysan على بلعت كم بديهاي إلى بدر الصومالي أيوة إثيوبيا وقعن قليين وحال الشيء يعني أيقير شباب هاي مليون تايم بفعل عليه أمباسدور عيد وهذا كم بديها جودجة دفاعه مدح بنانية الصومالية أو حسن الشيخ محمود مجعابي أو أرمها بدأ يكهر لما مجعابي مرور بقى حكومة أصول اعتمادات وحال سمية جودجة دفاعه مدح بنانية waxaa laga talageliyaa waxaa la weydiiyaa meelaha masiirka dalku uu yaalo oo leeyahay taladooda laga maarmo gudigaasi marka sare ee difaaca madax banaanida Soomaaliya ayuu ambassador Ciid ka mid yahay marka waa nin weyn oo insider ah oo xil weyn haya xil weyn soo qabtay waxa uu ka hadlayana garanaya arrin maskaxdiina ka weynna uu sheegayaa wuxuuna go'aansaday message-kaas waa message public ah in ummadda la wadaago una sheegay in badii Soomaaliya in gacanta laga bixiyaa oo qayb ka ah Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladdiisu waa war weyn runtii markay soo fiirno bal aynu dhageysano hadalka ambassadorka iyo sida uu ku bilaabanayo iyo sida uu yahay soo dhawaad bal dhageysta. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxay iga guddoontaan salaan وأنا دنجري عيد بدل محمد دنجري هوري فدي الصومالي قرمدي مدوبي أنا حوبين كترسن جودجا دفاعي دا مدح بنانيدا صوماليا ولا الواحد ربعنا وربحين ير يجواب نكسيه هذا هو حالي عبد عين تكشى تويتر سبيس كا لبا أرين بان ربعنا مركا إدين كجور رمو أرين وجواب تا هذا الكيو حالي يري أرين وأرين حقيقة سيدا وحجرين أو كوبان si guudna waxaan soo bandhigi doonaa lana sheergareyn doonaa saxaafadda iyo publica markii loo baahno cadeymo labada qaybood qaybta koowaad caynta wuxuu yiri gudiga waan ka saarnay Ciid Bedel ambassador Ciid Bedel horta gudigan waa gudi madaxweynuhu magacaabay January uu magacaabay madaxtooyada hoos yimaada 28 January waxaan soo ka yeeray Zoom meeting wasiirka madaxtooyada Ali Balcad waan kulanay waana iska wareysanay intii January ilaa hadda 5 bilood sida wuxuu jireen khilaafaadku meeshu ka bilowday sida loo maamulay maamul xumadii meesha ka dhacday si guud baan uga wada hadli doonaa xilli kale laakiin labada qodob aan rabaa inaan idin sheego inuu guddigan guddi madax banaan yahay madaxweyne magacaabay dekreeto madaxweyne ku soo baxday qof ka saari karaan uu soo jirin ayntana uusan qof ka saari karin qofna ku dari karin waayo ديكريتا بروسا مدحوينه هدو مقعابي مدحوينه هم بعد dadka ka saari kara laakiin qof shakhsi oo member ah oo anoo kala cidna kama saari karo taas waa qodob intaas rabaa inaan idin ka iraahdo qodobka labaad walaal waxa idin sheegayaa arrin idin ka qarsoon dadka Soomaaliyeed madaxda Soomaaliyeed oo hayay oo raba inaan idin sheego walaalayaal waxaan rabaa inaan idin sheego arrimahan badda intayna bilaaban sanadkii hore June 2023 dawladda Ethiopia waxay diyaarisay shir looga hadlayo Red Sea waxayna u yeertay dawladaha Horn Africa iyo Red Sea saaran wax arrin oo Red Sea oo bad ah oo damaca oo Ethiopia ay markaa ku dhawaaqdeen ma jirin waa sanadkii hore dhexbartankiisii June dad khubaro ah oo aqoon leh oo xilka dunaasiyada ku takhasusay ayaa loo yeeray oo kooban oo ka soo jeeda dawladaha Soomaaliya iyo Djibouti iyo dawladaha Red Sea saaran aniga oo ambassador Ciid Bedel dadkii Soomaali laga cazumay qofkii Soomaali laga cazumay baan ahaa
shirkaas wuxuu dhacayay markii hore August markii dambana waxaa dib loogu bedelay 21 September 2023 invitationkii shirkaas la igu soo diray waan qaaday waxaan u diray madaxweynaha iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waan la share gareeyay waan kala hadlay arrimaha Red Sea iyo Horn Africa iyo wixii soo socda iyo inay invitation iga timid xarun diblomaasiyadda xiriirka caalamiga oo sabab ku taala la iguna cazumi madaxdii markay tashteen way igu soo noqdeen waxay ugu yiraahdeen ambassador waana xushmeysay sharafa leedahay waa lagu sharfay waa lagu yeer invitation lagu sameeyay sida awgeed waxaan ka codsanaynaa inaad shirka ka qayb galin oo aad ka joogto shirku wuxuu dhacayaa ayni kugu celiyo wax Red Sea iyo wax Ethiopia iyo wax hadal oo bilowdo male waa markii ugu horeysay la rabay arrimaha in la bilaabo shirkaas Red Sea looga hadlayo wuxuu dhacayaa 21 September 2023 anoo ixtiraamaya madaxweynaha ra'iisul wasaaraha codsigooda shirki waa ka baaqday kama aan qayb galin waxaan u diray waxa la ii soo diray tiirkii aan uga qayb galayay shirkaas 7 September 2023 Ethiopian Airlines Muqdisho ka soo baxayo oo Addis Ababa imanay markay sidaa tahay email baan u diray waxaan ku iri walaalayaal raalli ahaada ima suurtoobayso inaan shirka ka qayb galo ra'iisul wasaare Xamse oo safar ku tagay Dooxa ayaan Dooxa isku nimid arrimo badan baan ka wada hadalnay kadibna New York baan aaday oo aan shirkii UN General Assembly saarlaanka shiraan kulahaan ka qayb galay anoo New York joogo 7 September ayaa la ii soo diray tigirkii aan ku aadi lahaa shirkaas wasaaraha iyo madaxweynaha waa ku celiyay waxaan la yiri ka joog waa ka joogay shirkii kama aan qayb galin email baan diraan leeyahay raalli ahaada kama qayb gali karo saas uga baaqdo inta la baxay ayaa caynte loo diray tigid la keenay Addis Ababa shirkii Red Sea ee anigu madaxweynaha ra'iisul wasaaraha tagin yiraahdeen buu caynte tagay ka qayb galay ka qudbeeyay statement inay ka akhriyay shirkaas cadeynteedina waa haya aniga shirkaas madaxweynaha ra'iisul wasaaraha tagin bay dhaheen waa ixtiraam waan ka aqbalay caynta invitation loo diray Addis Ababa tagay ka qayb galay shirka ka qudbeeyay shirkaasna wuxuu dhacay 21 September 2023 Soomaaliya ninka uga qayb galay cayntu ah cadeymihiina waan hayaa in aanu shirka ka baaqday anoo madaxweynaha ixtiraamay ra'iisul wasaaraha cayntana uu ka qayb galay cadeymihiina waa hayaa soo dhigaya waa qodobka labaad waxaan rabaa inaan idin sheego kadib September markuu soo dhacay wasaaradda arrimaha dibadda waxay diyaarisay report shirkii Red Sea waxay ku dhawaaqday policy xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed kadib wuxuu qabtay shirar badan warsaxaafadeed buu qabtay waxaana ku cadeeyay inay Ethiopia dareynayso arrimaha Red Sea kadib wuxuu tagay baarlamaanka Ethiopia wuxuu ka akhriyay khudbadiisii kadibna sanadkii saas uu ku dhamaaday January markay marayso sanadka 2024 waa kii Muuse Bixi loo saxeexay heshiiskii marka June bay arrintan bilaabatay qofkii lagu casuumay waa aniga qofka aan ka qayb galinay madaxweynaha ixtiraamo waa aniga ninka ka qayb galay ee albaabka furayna wuxuu ahaa Cabdi Caynte cadeymaheedina waa haya shirka ninka ka qayb galay kadibna Ethiopia policy-geeda dejisay iyada saasaynu ku dhawaaqay taas dadka Soomaaliyeed ha ogaadaan taariikh way isqoraysaa cadeymaheedina saxaafadda uu soo bandhigaya in shirkaas aan ka qayb galin invitationkiina aan hayo tigirkiina aan hayo emailkii aan iri kagama qayb galayaan aan hayo Cabdi Cayntan inuu ka qayb galay ka qudbeeyay tagay shirkaas cadeymaheedii waa haya taasaa loo socdo guddigii baa la dhisay January 17 guddigii wax badan ku dheeraan maayo Zoom baa 5 jeer lagu shiriyay waxa la diiday xamar inaan isku nimaadno suxna loo maamulay budget baa la gudbistay madaxtooyada budgetkii laga helay waa la iska isticmaalay si guud baan uga hadlayaa markay 5 bilood ay sidaa tahay ee guddigiina laga diiday inaan kulanno isla guddiga dhexdiisa waxaan rabaa inaan idin sheego in mas'uuliin kamida ay la kulmeen Etoobiyaanka oo is arkeen la shireen kala hadleen arrimaha MOU-ga 1-to-1 ay kala hadleen warbixinana laga diyaaray iyadana waa idin xaqiijinaya cadeymaheedina waa haya markii guddigii lagu tagrifalay shaqadii qof iska yeeshay wuxuu rabana laga samaystay aniga waxaan go'aan ku gaaray qadiyad Soomaaliyeed way qof leeyahay ma jidkii ugu haboonaa aan ku difaaci karo inaan ku difaaco anoo ah safiir hore mas'uul ah guddiga ka tirsan Soomaalinimada iyo qadiyada difaacaya
rabina xiriirka Itoobiya iyo Soomaaliya inuu meel xun sii gaaro diblomaasiyaddu waxay dhigaysaa inay xuduud lahayn markaad fiirisaan marka silsiladda meeshaan taalo waxa weeye Itoobiya markii ay qorsheynaysay oo shirkaasi Red Sea-ga damaacigeeda uu ku jiray oo ay dawladaha ay kala hadlaysay badaynu qaadanaynaa ama aynu doonaynaa inaynu galnay ama nagu sabood garay ama seed u aragtaan ninkaanay ku casuumeen dadkii Soomaaliyeed ku casuumeen ninkaana ka mid ahaa xasan sheekh maxamed dawladdiisa waxay ku tirahay aadin ka bacdin ayaga qof u dirsaday way macno ayaga meesha tagay oo caynta loo dirsaday markii caynta loo dirsaday oo hawshu ay soo dhamaatay bilowday Itoobiya oo olahii Abiy Ahmed oo baarlamaanka Itoobiya ka sheedinayay ka bacdi baa la bilaabay ayagana policy-gooda inta bedel ama sharciyadooda inta bedeleen ayay ku dareen baarlamaanka Itoobiya inay qasab tahay inay qayb ka helaan xaqan u leeyihiin badda Soomaaliya ama bad inay Red Sea helaan markaysa message-ku marka waxa weeye qayb bay ka ahaayeen dawladda damu jadiid heshiiska badda guddigii loogu talagalay heer qaran oo guddiga difaac ahaayo ninkaan uu ka mid ahana inuu xamar yimaado shir waa la diiday waayo waxa laga baqayay oo la diidayay inuu soo fargeliyo oo uu ka warbixiyo oo arrimaha uu ka hadlo waa la kala burburiyay budgetkoodina dawladda inay bixiso way diiday mushaharaadkooda in la bixiyo waa la diiday ayagina waa la kala jajabiyay waa la kala dhaxgal si kala markii loo dhigo dawladda Soomaaliya ayaa intaana sameynaysa heshiiskaana inuu dhaco ayaa qayb ka ahayd meeshii lagu soo curiyay dad damushiidaha loo diro fadhiyay dadkii kale oo la islahaa ama wadaniyiin weeye ama way diidi karayaan ama warka uu sheegayaana waa laga saaray nin ayaga damushiida ka mid ah ayaa halka la geystay oo qorshaha wax ka ahaa waa sida message-ka ambassador-ka uu dhacayo marar badan baynu ku celcelinaa laakiin maanta banaanka taaganta hadiiba guddigii difaaca qaran ay halka marayaan waxaad moodaa marka dadkii kaleeto waa maxay aragtidiina sideed u aragtaan tuunka hore muu qabteen fadlan muuqaalkan isgaarsiiya intaad isgaarsiin karaysaanba aad baan idin salaamayaa meel walbo joogtaan iyo si walboodii maqlaysaanba